Asalaamu calaykum asxaabay soo dhowaada halka aad videogan ka daaweydin waa Dr. Xaashi Network ama waa Facebooka pageka aan ku leeyahay Dr. Xaashi Network ama waa YouTube channelka Dr. Xaashi Network. Soo dhowaada mar kale. Videogan waa video hordhac ah oo ku saabsan waxa aan qabto, waxa background education-kayga iyo waxyaalaha aan soo bartay, waxa aad channelkan ka daawan doontaan iyo waxa uu yahay oo aan kusoo gudbiyay channelkan. Markaan ku bilaabay magacaygu waa Maxamed Xaashi, waxaan ahay doctor oo musculoskeletal systemka waxyaalaha la yiraahdo bartay, oo hadday tahay muruqyada, xididada, lafaha, xanuunka, waxyaalahaas mechanicalka loo yaqaano bartay. Waxbarashadayda gebi ahaanteedba marka laga reebo qayb yar oo aas-aasaga ama basiga laga reebo, inteeda badan ama post graduate educationka loo yaqaano iyo post secondary educationka loo yaqaano waxaan ku qaatay dalka Canada, magaalada Toronto, oo heerarkeeda kala duwan. Qayb ka mid a dugsiga sare, heerka koowaad ee jaamacadda, heerka labaad ee jaamacadda, waxyaalahaas oo dhan waxaan ku qaatay magaalada Toronto ee dalka Canada. 4 sano ugu dambeydana waxaan ka shaqeeyahay xarumo caafimaad oo kala duwan. Hadda waxaan part time uga shaqeeyaa magaalo Oakville la yiraahdo oo Toronto xoogaa u jirta. Toronto waa ka shaqeey jiray, hadda kama shaqeeyo. Sidoo kale waxaan ahay qoraa caafimaad. Buugaagta aan qoray waxaa hadda ugu caansan oo ugu weyn online-kana ku jira hadda waa buugga la yiraahdo The 3 Pillars of Healthy Lifestyle. isaga laftiisa channelkan aad ku arki doontiin Dr. Xaashi Network, Facebook page aad ku arki doontiin oo linkigu u yaala. Amazon laga gataa, website kale waa jirta oo ku jira, laakiin Amazon ugu caansan waa ebook ama book oo online ah. Sidoo kale waxaan ahay qoraa health and wellness oo caafimaadka wax ka qora, oo Spinacare Mobile Clinic blog post la yiraahdo ayaan ku qoraa topic kala duwan oo ku saabsan xanuunada dhabarka ku dhaca, kuwa lafaha ku dhaca, kuwa qoorta ku dhaca. Inta badan topicyadaas gebi ahaantoodba inta badan maahane waa luqadda Ingiriisiga ku qoran yihiin. Marka channelkanna waxaan idinkula wadaagi doonaa si kooban artikeladaas aan Ingiriiska ku qoray, version-kooda af Soomaaliga oo summarize garaysan iyo waxa uu yahay. Marka wax yar haddaan soo koobo, channelku waa sidaas. Waxyaalaha aad ka daawan doontaan channelkan oo aan soo geli doono, qaarkoodna diyaarsan yahay, qaarkoodna uu process iyoonan weli diyaarin. Waxaa ka mid ah educationka waddanka Canada, sida wax looga barto, waxyaalaha caqabadaha ugu waaweyn oo ay dadku la kulmaan, wixii anigu aan la kulmay, dadka aan ka caawiyey iyo waxyaalaha aan ka caawiyey, sida qofka oo wax kusoo barta waddanka dibaddiisa ama wadamo kale, Africa iyo Asia iyo wadamada kale oo Yurubta bari iyo kusoo bartay, markaana shahaadooyinkiisii rabaa process inuu u maro, la aqoonsado, iyo credential assessment wax la yiraahdo la maraa jirta. Waxyaalahaas iyo qaabka loo maro, qaabka shahaadooyinkaas aadan from scratch aadan uga soo bilaabin oo loo cusboonaysiiyo, meelaha lala xiriiro, website-yada iyo qaabka loola xiriiro iyo waxyaalahaas oo dhan. 4 sano ugu dambeyday waa kasoo caawinayay dadka. 4 sano maba ahna ka badan kasoo caawinayay. Marka si individual ah, qof yaqaana qof uu igu soo xiray, waxyaalahaas aan uga caawi jiray oo informationka waan uga sii jiray. Laakiin hadda information badan oo waxyaalahaas la xiriira si public aan halkan idinkula wadaagi doonaa. Waxaan kaloo idinla wadaagi doonaa caqabadaha ugu waaweyn oo lagala kulmo markii la rabo in Canada wax laga barto iyo sida loo xalliyo xalkoodu u yahay. Videogan idinkulama wadaagayo video hordhaca, laakiin qaybta labaad oo ku magacaaban waxbarashadeydii Canada iyo heerarka ay martay iyo aan idinkula wadaagi doonaa hintiyada iyo meelaha la marmaro iyo waxyaalaha loo marmaro. Marka si guud waxbarashada Canada waxay iyo maaragtay caqabadaha ku hareeraysan iyo sida looga faa'iideysto channelkan ka daawan doontiin oo idinkula wadaagi doonaa inta aan karayo. Waxaan kaloo idinkula wadaagi doonaa channelkan topic-ya caafimaadka oo inta badan la xiriira musculoskeletal systemka waxa la yiraahdo, jilba xanuunka, dhabar xanuunka, qoor xanuunka, xiriirtoo dhan xanuunkeeda, waxyaalahaas iyo waxa keena iyo sida looga hortagi karo, iyo overall wellness iyo dhaqaatiirta ku shaqada leh. Wadamadu way kala duwan yihiin, wadan walba macnaha specialization jirta oo waddankaas ay aqoonsan yihiin oo dhaqaatiir loogu talagalaa jirta. Macnaha inta badan wadamadan westiga ama qurbaha wax walba dhakhtar isku qabta ma jirto, qolaba meel ay magaranaysaa ay ku takhaqusto waxeedu u yahay.
marka iyadana waa idinkula wadaagi doonaa wadamadu sida ay maaragtay xanuunadaas markay kusoo wajahaan cidda ku shuqul kale iyo cidda lala xiriiro iyo dhakhtarka adoon waqtigu kaa lumise ciddii ku maaragtay arrimahan ku fiicnaa si aad toos ugu aado. marka si guud waxyaalo toobigya la xiriira caafimaadka oo educational ah iyo toobigya la xiriira waxbarashada iyaguna oo educational ah oo educational content waxa loo yaqaano ayaad channelkan ka daawo doontiin. marka la soo dhawaada waa Dr. Xaashi magacaygu, waxa aadna kala socotaan fiidiyoyadayda aad kala socon doontiin Dr. Xaashi Network. soo dhawaada mar kale.